السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعند وديال كسر وهذا بنتلان تي في برنامج دودا وهالكان عن كجهة لدونه تعدية أي لكل من هواكو كفسجا سدا لولا تعالوا يولي بالعيب أي قصيصه أو عن دور حديث دونه حيل الدولة مسؤولين كم إذا بعد عدالة ده دولة بنتلان أو الشيخ سعيد أحمد فارح أو كم إذا علماء بنتلان إسلام مركزنا أحقرين سدا كل وحنا رفض يسلبان أو نقول جو عيدا كبوليس كجرهان قيبت CID ده عبد الغني فارح محمود ويسوقنا كسعودة حفيزك حيرالين تجود دولة بنتلان يشمس بلا سعيد ويدنا حفيزك حيرالين تجود دولة بنتلان كسعودة كسر وهذا المانتي برامج كان دودا بنتلان تي في أنكو قبنا إنه حرونتي كرو سر وهذا واتهاي وحقنا برامج كان دودا سؤال شوقه الرئيسة قف كستوينا دعوانا يحلقة يبقى إنه إسويديو وهم حي تعدي الجنسي بقى الله مقلايو بهذه عدالة أما حير أنتو مروا البعض هذا الشان اللي كم غلا شخصية نقول بالهبة يا شخص ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد دمان بهذا تيفيجا بنتلان يداود يا شباب وحنكوسا صاحبة جلاء قبل يدبيتك وحنكوسا سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام وما حيتعدق الجنسي كنت وحوي أرين آد وجودوين أو بلارن أو تعدق الجنسي حتى واحد مركز اللي هذا واحد سوق جري كره زينة عادقة وتعدي جنسي لكن مركز كهذا الله كفسي واحد اللي هذا واحد جذب حوج لوصم يقف ضمر الشرفتي لو واحد جذبه iyadoo la adeegsanayo xoog loo sameeyo arintaas oo ah arin xaraan ah oo aad u fool xun shariicada islaamka iyo qawaaniinta intuba ay xaraameeyeen iyo inta aqliga leh ma jiro hal sharci ah ama qaanuun ah oo adduunka ka jira oo ogol xoog in loo isticmaalo qof dumar ah oo la khasbo ma jiraan marka laga reebo qolyo yar oo yiraahda qofku ninka haweenta kufsaday haduu guursado waa ka dhacaya dambigu laakiin dhammaan waxa la isku waafaqsan yahay shariicada ama islaami ha ahaato ama qaanuuni ha ahaatee wax alla waxa sharci oo jira inuu xaraam yahay arinta marka aanu ka faa'iideysanaya waxaan ummadeena bulshadeena Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland uga digayaa dhalinyarada isku dayda maalin walba inay sameeyaan arin kufsi ah waxa weeye ilaahay shariicadiisana waa xaraameysay waxa la yiraahdo hadda imikana qaanuun ciqaabtiisu adag tahay baa loo dajiyay sida darteed waan uga digayaa inay arinta waxaan uga digayaa inay arinta dib u sameeyaan ee ka waantoobaan ayaan uga digayaa waad mahadsantahay halkaan aanu idinkaga soo tageynaa bahda cadaaladda ee Puntland ay nala fadhiyaan waxa si kaashanaya barnaamijkan xafiiska xiraalinta guud ee dawladda Puntland telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland iyo hay'adda UN Women oo iyaduna barnaamijkan qayb ka barnaamij su'aalihiisa ayaan ku soconaynaa xafiiska xiraalinta ee Puntland waxa uu unit ka sameeyay la tacaalida jinsiga muxuu ka qabaa Cabdiqani oo nagala fadhiya xafiiska xiraalinta بسم الله الرحمن الرحيم مركب أبوه الرئيسة وحن سلام يا تيفي قبلان ومالك مرتي وقلنا هاي دمان كل شيء غير قبلان قلت يوم مدة صومالي دان سيدو قالوا حتى برام يا صاحب بدأ يقرأ في كلمات الدودن وقتك وصوري دمان سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي إن سؤال أدي ودي سوى سؤال مهم قيمة بدنا كفردا إن هدي أن إيه كوب هي حفيز كحيران دولة قبلان horta wakiil wuxuu ka yahay dhammaan shuruucda dawladda Puntland ka jirta inuu ilaaliyo isagoo waajibaadka saaran oo dastuuriga ah haday tahay sharci ka saddex sharciga islaamka iyo haday tahay qawaaniinta gaarka oo loo dejiyay isla markaana waxaanu si gaar ah shuruucda markaanu aragno waxaanu si gaar ah isha ugu sii haynaa dambiyada aanu aragno inay ama markaa soo bataan ama aanu u aragno inay ilku hayn gaar ah u baahan yihiin ayaan inta badan markaan sanadkii sameeyno statistics ama aan samayno qiimeyn waxaan noo soo baxay dambiyada markaa u baahan ilku hayn gaar ah in lagu sii qabto iminka hadda waxaan noo soo baxday in ay u baahan tahay ilku hayn gaar ah in lagu sameeyo tacadiyada dumarka lagu sameeyo ama kufsi ha noqdo tacadigu inkastoo guda ballaaran yahay marka in ilku hayn gaar ah lagu sameeyo noqday isla markaana waxaan u sameynay unit u gaara oo la tacaala
tacadiga loo geysto dumarka maadaama arrintaasu ay tahay arrin xasaasiya sidoo hadda shiikhu inoo sheegaya ama aynu wada ognahayba ama shareecada islaamku inoo sheegaysaba ay tahay in xaaraan tacadi qof dumara loo geysto iyadoo ay saa tahay xaaraan tahay haddana tacadiga waxaa ka yimaada dhibaatooyin fara badan dhibaato fara badan baa ka timaada marka hore waynu ognahay qof bini aadan oo ilaahay sharaf iyo ciise siiyey ayaa laga yaabaa sharaftiisa in lagu xadgudbo markay taas timaado haddana waxaa dhici karta in isku dhac ballaarina ay ka timaado marka xigta waxaa dhici karta qawaaniintii waddanka u degsanayd oo dawladdu mas-uulka ahayd oo isha ay ku haysay baa lagu xadgudbay isla markaa arrintaas nooc kasta ha ahaato waxaa xafiiskanu goostay ama uu noo muuqatay in loo sameeyo unit gaar u ah oo la dagaalama arrintaas ayaa loo sameeyey iminkana wuu shaqo galay shaqooyin fara badanna wuu ka qabtay insha allah ilahay waxaanu ka rajaynaynaa in aan qaabkii ay ugu guulaysan lahaayeen ama loo tirtiri lahaa kiiska noocaasa loo tirtiri lahaa bulshadana looga tirtiri lahaa wixii aan ogeyna wacyigelin looga samayn lahaa ayaa xafiiskana goostay insha allah ilahay waxaan ka rajaynaynaa in aanu qaabkaan marka hore hadafkaan u lahayn aanu ku guulaysano lagana tirtiro aad iyo aad baad u mahadsantihin insha sida aad nagu soo koobtay isla markaasna aad kaga hadashay xeerkii xafiiska xeeraarinta guud iyo bahda cadaaladdu ay ka sameeyeen dembiyada dhaca iyo sida wax looga qaban karo haddaba waxaa isweydiin mudan xeerka kursiga ee dowladda puntland ma ka hirgalay maxkamadaha puntland maxayse tahay ciqaabta qofkii kursi geysta shamso oo nagala fadhida iyaduna xafiiska xeeraarinta guud ee puntland bismillahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa tv-ga puntland iyo dhammaan qareenka qareen sheekh saciid iyo CID-da iyo cabdiqani oo kale oo isaguna xafiiska xeeraarinta ku socday dhammaantood waxaan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aasha ahayd ma ka hirgalay xeerka kufsigu maxkamadaha dowladda puntland haa waa ka hirgalay ma jirin markii hore xeer toosa oo faahfaahsan oo looga shaqeeyo ama lala tiigsado marka qofka xeriraaliyaha uu rabo keyska inuu diyaariyo maxkamadda uu la hortago hal qodob baa jiray oo ah qodobka 398 oo ah xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ku yaala oo ahaa kufsi kaliya ka hadlaya ma jirin sharci faahfaahsan oo awal micnihi markii loo geysto hadda qof dib loo geysto ama kufsi uu dhaco ma jirin sharci faahfaahsan oo qofkaas talaabo wax kasta uu sameeyo ciqaab gooni ah u leedahay marka hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ka hirgalay maxkamadaha Puntland oo dhan maxkamad kastana waa laga isticmaalaa iyadoo lagu soo saarayo xukunka qofkaas uu lahaa iyo lala tiigsanayo cadaalad oo maxkamadaha Puntland ay qaadeen ilaa horta sharcigan wuxuu soo baxay bishii 9aad 2016 soo baxay sharciga kursiga dawladda Puntland dhammaan ilaa waqtiga intii ka dambeysay kiisaska dhammaan kiisaska kursiga isaga ayaa loo cuskanay maadaama uu yahay sharci khaas oo ka hadlayo kursiga kaliya isaga kaliya loo cuskanay kiisaska dhammaan anagu haddaan xeraaliyaan gobolada aan nahay iyo haddaan kuwa xoog garownahay kulli waxaan ula tiigsanaa sharcigan maadaama uu sharcigan uu yahay sharci khaas oo u khaas yeelayo waatahay Salmaan baa isaguna barnaamijka nagala qeyba oo ciidanka booliiska ee Puntland gaar ahaan qaybta CID-da kamid ah Salmaan ku soo dhaweynaya barnaamijkan dooda bal ciidan booliis ahaan idinku door ma ku leedihiin doorkiinusa intee la egyahay kiisaska tacadiga in laga hortago waa arrin wanaagsan waxaan u salaamayaa bahda TV-ga Puntland iyo saaxiibada dooda igala qayb galay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waan ku salaamayaa intaa ka bacdi su-aal waxaad weydiisay muhiima ee ku saabsan boolisku doorka uu ka qaadan karo ama ku leeyahay arrimaha tacadiyada iyo kursiga boolis ahaan haddaan ka hadlo arrintaa waa arrin muhiima waxaad moodaa in boolisku kaalinta koowaad kaga jiro tacadiyada iyo kufsiyada iyo dunuubta dhacaysa anagu sideedaba waxa weeyaan hay-adda boolisku waxay ku shaqaysaa hal kelmo in maxaa su-aala dembi ma dhacay bise ma dhicin horta haddii ilahay waa dhacay yaa sameeyey waxaa soo gelaya su-aalaa soo gelaya yaa sameeyey yaa lagu sameeyey xaggay ka dhaceen maxay u dhaceen su-aalaasa soo gelaya haddii ilahay dembi ma dhicin dee waxa weeye waxba ma dhicinba weeyaan okay boolisku marka hore dacbashaa soo gaadha qofkii dhibanaha
ribood baa imaanaya laleeyahay qof gabadhan la kubsaday marka hoobiga lagu qoro marka ugu horeysa maxaa qofka cabashadiisa la qoro hoobiga la geliyaa cabashadii bay maqranaysaa si wax u dhaceen meeshii maqranaysaa cidda ku samaysay marka had iyo jeer ama inta badan ba intii uu jiray xeerkan iyo intii ka horeysayba had iyo jeer waxaanu isticmaali jirnay ama booliska isticmaalaan xubin muhiima oo tababaran waraysiga dhibanaha iyo meel ku habboon in magarasa muxuu ahaa loo sameeyo kadibna qofka loo sameeyo badbaado la geeyo meesha ugu dhow xarumaha caafimaadka si qofka naftiisa loo badbaadiyo wixii gaadhay ee dhibaato ahaa ama saxda ka gaadhayn ama jir ahaan ka gaadhayna waxaanu siinaa warqadda dhaawac muujinta ama rifeertada xubintaa muhiimka lagu daraa tanan baa hayda kaaloo kale baa loo geeyaa jawaabtii marka la keeno iyagu arrinta caafimaad bay magaranaysa muxuu ahaa ka qayb qaataan arrimahooda qabsadaan qofka arrintiisa badbaadada caafimaadka in macnaha la baadho oo waxyaalaha magaranaysa qofkaasu dhibanaa ku yahay la baadho intaa kadib anagu markaa waxaanu ku xidhnaanaa in aanu ogeysiino hay-adaha garsoorka si wax u dhaceen ciddi dhibana ah wixii geystay eedaysanihii si gacanta loogu dhigi lahaa loo soo qaban lahaa loo ogeysiin lahaa xafiiska xeraalinta loogu socodsiin lahaa iyo garsoorka maxkamadda darajada macnaha awooddaas kale intaa kadib anagu kiiskanu soo ognaa inta badan kiiskanu soo ognaa conclusion baanu samaynaa xafiiska xeraalintan usoo gudbinaa marka anagu doorkaanu ka qaadanaa waa door muhiima midda labaad had iyo jeer anagu xogaha waxaanu ka helnaa meelaha dadka barakacayaasha qaxootiga meelaha ubasiirooyinka ah meelaha had iyo jeer kufsigu u badan yahay dadka magaraysaa kufsigu u badan yahay waa meelaha haddii aan macnaha yaro guda galo waxaa laga yaabaa 10kii kufsi ee dhaca 3 inay beenoodaan oo magaraysaa ay noqdaan waxaan jirin laba in lala leexdo meelaha lagula leexdo oo magaraysaa odayaasha iyo magaraysaa wixii oo marka horeba lala daaho gabadh iyo muddo magaraysaa muxuu ahaa wixii qabtay in magaraysaa muxuu ahaa bar damba la keeno dabeedna raadkaas lumaba saddex ahaan ama afar ahaana garsoorka lagu geynaa waa ku mitidnaa intaasaan kaga baxayaan waata aad baad mahadsan tahay aad baan kaga mahad celinaya cabdiqani adi haddii aan kusoo laabto dhowaan waxaa la hirgeliyey forensic labka oo puntland laga hirgeliyey markii ugu horeysay ama qalabka lagu baaro dheecaanka DNA-ga loo yaqaano marka bahdina cadaaladdu aad baad usoo dhaweyseen in xaruntaas la hirgeliyo oo puntland markii ugu horeysay laga hirgeliyo marka waxaa la isweydiin karaa bal maxaa forensic labku uu soo kordhin karaa door intee lag ayuu ka qaadan karaa in la dhimo kufsiga iyo tacadiyada haweenka loo geystay ee puntland aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana su-aal muhiima waana su-aal aan dooninay inaan halkan uga faa'iidaysano bulshada reer puntland ama guud ahaan soomaaliya in laabka maanta puntland laga hirgeliyey in laga ogaado meel kasta ay joogaan haddii in yar aan ku noqdo waxyaalaha faa'iidada ah ama caqabadaha taagnaa oo haddar lagaga gudbo laabkan dembi markuu dhaco horta booliska markuu kiiska loo geeyo waxaa la yidhahdaa dembi ma dhacay marka uu caddaado marka hore waxaa la caddaynaya in dembi dhacay marka uu caddaado dembi inuu dhacay waxaa haddana loo qodaa yaa galay dembiga qofka galay waa kuma markaasaa tallaabooyin kale loo gudbaa taa waxaan uga socdaa iminka for example waxaa dhici karabaya case kufsiyaa dhaca waxaa la geeyaa bahda caafimaadka inta badan caddaysa case kufsiga markuu dhaco caafimaadka marka la geeyo waxaa la soo caddeeyaa falkan inuu dhacay faldambiyeed kufsiga inuu dhacay dambiilaa loo soo xidhaa dambiiluhu wuxuu odhanayaa anigu dembigan ma gelin marka dembiga dhacayaana sideedana waan ogtahay qofka dembiga markuu gelaya cidna lama kaashada wuxuu ku dhacaa meel cidlaa inta badan
oo wax markhaatiya haba yaraatee looma helo marka waxaan hortimaa dembigii wuu dhacay waa la hubaa ninkanna waa loo soo xidhay balse ninkan yaa ku caddaynaya dembigii inuu dhacay waa caqabadaha ugu waaweyn oo naga soo food saara kiiskan nasiib wanaag maanta kiiskan haddeer hadduu dhaco qofku markuu qabo waxaa la iraaminaysaa markiiba in baaritaan lagu sameeyo dhicanadii in la baadho waxaa markaa lagu ogaanayaa qofkii faldambiyeedkan galay inuu isaga yahay iyo in kale halkaa waxaa ka baxaya qof dembiile ana inuu baxsado qof aan dembi lahaynna in lagu tacadiyo marka forensic laabka wuxuu ka qayb qaadanayaa dembigan kayskan inuu dhacay wax muhiima ayuu uga qayb qaadanayaa wuxuu kaloo ka qayb qaadanayaa cadaaladda wuxuu kaloo ka qayb qaadanayaa xitaa dembiilayaashu markay maanta ogaadaan in arrintan ay dhacayso lays ogaanayo inuu dib uga noqdo marka waxaan leeyahay aad uga qayb qaadanayaa waxaan laakiin dhammaan bulshada reer Puntland u soo gudbinaya halkan uga faa'iideysanaya in maanta ay ka hirgashay forensic lab Puntland in qof kasta dembiga galay si yar loo ogaan karo marka waxaan ka codsanayaa qof kasta oo faldambiyeedka la kulmo inuu goobaha caafimaadka markiiba la xidhiidho waxaana dhici karta dhacanada waxa lagu ogaan karayaa qofka inuu waxa lagu ogaan karaa 72 saacadood 72 saacadood hadduu dhaafo waxba loo forensic lab ka qaban maayo waa inta ka horeyso xarunta caafimaad ugu horeyso inuu u geeyo xarunta caafimaad meel kasta ha joogto haddii xarunta caafimaad ugu horeyso la geeyo xarunta caafimaad la geeyo ayaa tallaabo iyo booliska iska kaashanaya tallaabadaas sidii loo soo gaarsiin lahaa hadda waa garow ku eegay moogtahay gobolka garow ku eegay laakiin for example hadduu boosaaso kale ka dhaco oo xarun caafimaad la geeyay xarunta caafimaadka markiiba iyadu waxay qorsheynaysaa si ay u soo gaarsiin lahayd halkan iyadu qayada moogta qaabka tikniika ay u isticmaalayso iyo qalabka ay u soo adeegsanayso iyo wuxuu iyada aqaan iyo in la soo gudbiyo marka waxaan soo jeedinayaa oo bulshada reer Puntland la socodsiinaya forensic lab in maanta Puntland laga hirgeliyay in dhacaan kasta oo la kala ogaan karo qofkii galay iyo qofkii galan marka waxaan soo jeedinayaa oo waliba aan ka codsanaynaa bulshada haddii faldambiyeedkaas u dhacay oo aad ogaataan inaad geysaan xarunta inay ku dhow oo caafimaad xarunta caafimaadka markaa ina maajiraynaysaa booliska iyo xarunta caafimaad way iska kaashanayaan booliskuna waajibaadka saaran waxaa ka mid ah haddii qof dhibanaha u yimaado ama uu dhibtan la gaarsiiyey waxaa u waajiba 2 tallaabo inuu qaado inuu qofkiina badbaadiyo dhibaataduna soo gaadhay iyo inuu dambiilihii raadiyey marka ama xarun caafimaad ha noqoto ama xarun boolis ha noqoto meesha kuugu dhow qofka faldambiyeedkaas laga galay waxaan u soo jeedinaynaa oo u soo gudbinaynaa oo weliba ka codsanaynaa meesha kuugu dhow oo xarun caafimaad ama xarun boolis inaad tagtid waxaanuna waa dhibaatadana in la qarsada ma aha waxaan mid kale bulshada u sheegnaa dhibaatadan haddii la qarsado oo dib loo dhigo oo la qariyo oo waajibaadka ay leedahay aan la marin ama aan sharciga loo horgeen waxaana waa iska sii soconayaan lagana soo horkalaaban maayo hadday iska sii socdaan dhibaatooyin fara badan oo tan ka duwan baa laga yaabaa inay timaado hal qof ku gaadhay laakiin waxaa laga yaabaa inay hadhow dhibaatada dhacday 100 qof oo kale ay sii saamayso in dambiilaha dhacay haddaan markaa tallaabo laga qaadin uu noqonayo waxa uu caadaystay oo wuxuu arkayaa inaan cidina wax ka qabanin marka النسيب وناك الحمد لله رب العالمين وأرين الله وفرحهم أنت بلان إلا جهر قلي فرنسا لاب ومركز وجوه رئيسي أو سوماليا اللي جوه قلي أنت بربو كده بيزي بربو سوماليا أنت أي مركز فرنسا لاب بلان جهر قلي وأرين جولا وعم بالشدر غير بلان وهلك وجوه قد بينا يا كجنا فائدة سنة يا فرنسا لاب ما أنت بلان جهر قلي إن قفل بقفنا أو كنا قيب قادنا يا عدالة دبيلنا وصن إن بحسن marka waxaan ka codsanaynaa ugu soo gudbinaa bulshada inay goobaha caafimaadka iyo booliska la soo xiriiraan meel kasta ay joogaan si arintaas ay ma inta ay wax ka qabad kale loo qabto waxa ogaataan 72 saacadood haday dhaafto wax ka qabad ma leh marka arimahaas oo dhan buu ka qayb qaadanayaan aad iyo aad u mahadsantahay aad u mahadsantahay inta aanan ka bixin isla adiga markii la soo ogaado qofkan inuu isagu kursiga ka dambeeyay oo cadayntii lagu helo dhawaan baa la sameeyay oo xeerkii kursiga oo aad sheegteen inuu maxkamadii ka hirgalay marka qofkii lagu helo waxa lagu xukumay sharcigu muxuu qabaa waa su'aal fiican waxa lagu xukumay horta sideedaba waxa shuruucda la yiraahdo wax qoran ninka qaadiga ah ama xeer ilaalinta ama boolisku waxyaalaha dadka u adeegsanayaan ma aha wax ay iyagu maskaxdooda ka keenaan waa shuruucda oo ugu horeyso shariicada islaamka oo la dabaqo waxa ku xiga dastuurka dawladda Puntland waxa ku xiga xeerar gaar ah oo iyana sida aynu ku gaaro iyana Puntland ay dejisay
marka waxaa la cuskanayaa iminka for example waxaa sida haddeer ay xeeralintu ay sharaxaysay waxaa jirta haddeer buuggaas oo xeerka kufsiga puntland la yidhaahdo oo laga hirgeliyey puntland wuxuu dhigayaa qofka faldambiyeedka gala oo ay ku caddaato oo garsooraha hortii uga caddaato 5 iyo 10 ilaa iyo 20 sano oo xadhiga inuu mutaysanayo iyo weliba xuquuqdii gabadhii uu ka galay dembiga xuquuqda ay lahayd oo lagu xukumo ayuu mutaysanayaa marka xeerkaasoo haddeer wuu ka hirgalay dhammaanna meel kasta wuu yaalaa fadlan marka waxaan leenahay puntland guul weyn bay ka gaadhay maanta meel laga sameeyey xeerka kufsiga waxaa jira puntland haddii aladinka leeyahay xeerkiina waan soo haysanaa France labkiina waa la haystaa marka intaba way jirtaa marka guulahaas ayaa laga gaadhay aad iyo aad baad mahadsantihiin waata aad baad mahadsan tahay cabdiqani sheekh Saciid baa isna la fadhiyo oo marka laga soo tago inuu qaranadii ka mid yahay haddana waa culimadii Puntland mid ka mid ah sheekh Saciid markaan ka tagno dawladdu xeerkan ay soo saartay oo la sheegay hadda inuu maxkamadihii ka hirgalay bal sharciga islaamka baa inagu islaam baynu nahay oo saldhigino ah shariicada islaamku maxay ka qabtaa qofkii lagu helo inuu kufsi ka dambeeyay arrintan hadda cabdiqanina sharxayay kufsiga laba arrimood buu noqdaa mid waxa weeye waa maalan wixii baaritaan kusoo baxa sida hadda forensic labka oo kale iyo waxyaabo kaloo la helay waxna waa qiraan qofku hadduu qirto isagu inuu galay dee shareecada islaamka xeerarkeenna waxaa xukuma shareecada islaamka hadduu qofkaasu guur soo maray shareecada islaamka dhagax in lagu dilo kow lagaga siiyo ayay jidaynaysaa waa hadduu u qirto ama 4 markhaanti oo raga la helo in la takhalusiyo haddii uu yahay qof aan nikaax soo marin oo soo guursan waa 100 jeedal iyo sanad xarig ah oo masaafurin ah taas iyo waxa intaas ciqaabtiisi weeye waxa dheer wixii xuquuq ahaa oo gabadha tan ay lahayd hadduu meher yahay hadduu bikr jabin yahay hadduu dhaawac gaari yahay wax alla wixii xuquuq madani ah taana waa lagu yeeranayaa waxa haray marka wixii maalan hadda waxaa lagu helay biyaha kan inuu leeyahay ninka kan lagu eedeeyey xuduuddii ma waajibinayso maxaa yeelay xuduudda xadiis iyo aayad baa ka hadlay iyaga lama dhaafi karo waa in 4 markhaanti loo helo ama qiraar laakiin muxuu helayaa ciqaab buu helayaa qofka qaadiga ayaa ciqaabtiisa ka wiciisay wuxuu kaba faa'iideynayaa marna gabadhaa la kufsaday xuquuqdeedii inay dhumin hadday meher tahay intuu ku noqday jeer oo mar walba meher u waajibayo hadduu 10 goor ku noqday 10 meher baa u waajibaya haddii ay bikra lahayd ugu yaraan 5 jeer u waajibaya dhaawacii gaaray oo loo qiimeynayo wixii jirkeeda soo gaaray oo kale waxaa jira oo kale waxaa la yidhaahdaa intaas waa qofka kufsadaha ah waxaa dheer haddii qofku magaalo wax ka kufsado ama hub isticmaalo iyada waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu dhaqayaa waxa wadadii xiraabada oo inamaa jazaa'u alladina yuxaaribuuna allaha warasuulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك اللهم خصوصا في الحياة ولهم في الآخرة عذاب عظيم أفر الرمون هو إله يا رسول كيسا لا دقالنا نقول كان بإينيا وحمان تقوى أبا الكود وعيهي إلا الله يوم أما لا نسوه حتى يوحد دلان والد دليا حتى حولا إطاعتين يو دل أي سوكيستين inta la dilo baa la dhisaya halka waqtigooda loo dhisaya hadday xoolo kaliya qaateen gacanta midig iyo lugta bidix baa la goynaya haddii ay cabsi geliyeen dadka kaliya dhulkaa laga ediyaa waxaa la yahay 4 xubun ayaa qofkaa kii maslaxad qaaligu u arko ayuu ku fulinaya inuu yahay hal laayo inuu yahay luya gacan isdaaf hal la gooyo culimada qaarkeed runtii waxa weeye tan hore baa muctamad ku yahay in lagu dhaqo qofka oo hadduu yahay qof soo nikaax xalaal soo maray in dhagax lagu dilo haddii kana 100 karbaash iyo gabadha xuquuqdeedii laakiin culimada dambe waxay yiraahdeen fasaadku hadduu bato oo dhulka la arko inaan waxa kani taasi wax ka reebeen 4taas waa ama hub isticmaalo iyo xoog iyo gurigoodu ka qaato saasa lagu isticmaalayaa waa la dilayaa luya gacan islaafa la goynayaa waxa weeye muxuu ahaa dhulkaana waa la masaafurinaya meesha waa laga masaafurinaya marka axkaamta faraha badan ayuu leeyahay xagga shareecada islaamka xeerkani marka hadda waa khaas baa laga dhigay ma aha xeer runtii
ka hor imaanayo wax laga yaabaa xarigga kan hadda loo jidayo oo kale oo qofkii uu ku cadaan waayo ama afartii markhaati marka la waayo iyo qiraalkiisii qaadigu u garto 25 hadduu uga dhigo iyo 30 hadduu uga dhigo iyo dee waa qaadigaa loo daayay marka xeerkani mar walba waa mid shareecadii waafaqsan ma aha mid ka soo yeey saasaa marka loo soo fudeeyey waxaa loo fudeeyey dadka xeeraalinta iyo muxuu ahaa baarayaasha iyo booliska iyo baa shareecadii looga soo fudeeyey waa xeer aad u wanaagsan waa tahay aad uad mahadsantahay sheekh saciid marka laga soo tago xukunka aan kasoo gudubno oo si faahfaahsan uga hadasheen aad waxaa bahda xeeraalintu iyo booliiska iyo kulli ay uga cawdaan dumarku markii loo geysta falalka noocaana ma soo gudbiyaan haddaba waa maxay sababaha keena inaysan dumarku ku wargelin cabashooyinkooda xarumihii booliiska iyo cadaaladda si ay cadaalad u helaan shamsaye بسم الله الرحمن الرحيم markii dhibaato ama tacaddi sida kufsiga oo kale uu ku dhaco gabar badana waxa la dhahaa 10% ama 20 baa waxay soo gaaraan lamaha cadaaladda maxaa marka waxa la isweydiiyaa sababta ay tacaddigan waa dhacay tacaddi waa la arkay gabar aniga ku dhacay waa la ogyahay sababta ay u tagi weeday maxaa la dhahaa ay u tagi waayeen lamaha cadaaladda ama u sheegi waayeen marka ugu horeysa horta koow waxa ka aqoonaysa sheegay bulshadeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan uma arkaan horta dambiga horta kufsiga wuxuu ku jiraa dunuubta waaweyn sida qodobada ay sheegayaan marka dadka Soomaaliyeedna uma arkaan badankood waaga hore waa loo aqoonsan laakiin hadda looma arko inuu yahay dambigan inuu dunuubta waaweyn marka hadda haddii gabar la soo kufsado oo kale family-gu waxay dhahay annaga sharafteeda waxay ka weyn dhibaatada ku soo gaartay marka iska aamus baa la dhahay gabadha waxa kale oo sababa oo taasna waxay keenaysaa inay gabadhii marka dhibkii ku dhacday oo dhibaatada qofka markii kufsi loo geysto dhibaatooyin badan baa soo wajahaya wax soo dhibaato maskaxiyaana soo gaaraysa mid jir ahaan baa soo gaaraysa qofka mustaqbalkiisa gabadhina halkaas ku dhamaata laga yaabo oo ku baaqo waxa laga yaabaa xanuuno inay la diristo qofkaasi kufsi ku dhacay marka waxa la dhahayaa aamus marka waxa ugu weyn oo sababa waa bulshada waxa labaad oo sababa waxay tahay inay dadku ay ka baqayaan bidciyada sharciga hadday boolis tahay iyo hadday xeeraalin tahay iyo hadday bulshadii tahay waxay isleedahay gabadhan haddii aad keiskaaga intaa ballaariso aad tiraahdo qofkii waa garanaysaa keiskiina way ogtahay inuu ku dhacay oo kale dadkiina way garanaysaa qofkii ay dhahayso dadkaasay ahaayeen dadka sida ay galaan ninkasaa ay galaan marka haddii ay la tigsato is tiraahdo ay tagto booliskii ay tagto maxkamadii ay xeeraalinta usoo sheegto waxa laga yaabaa inay is tiraahdo cadaalad kama gaartid marka anigu bulshada waxaan u sheegaynaa hadda waaga hore mise hadda waxa jooga xeeraaliyaan u heegana waxa jooga boolis u heegana waxa la sameeyay qaybtaas aad arkaysaan oo waxay tahay qaybta tacdiyada jinsiga oo kale marka hadda waxa loo heegayay kiisaskan kufsiga oo tiradii ka batay oo dadkii dee lagu asqaysiyo arkaysa bishii marka ay boqolkiisa soo gaaraan ama kontonkiisa soo gaaraan inay 30 ama 20 kamid ay tahay in la soo afjaraa bulshada waxaan u sheegaynaa in gabar kasta oo tacaddi ku dhaco meel kasta oo joogto meesha ugu dhow oo boolis ama caafimaad inay waa tahay aad u mahadsantahay barnaamijka qaybihiisa dambe aan kusii dhownahay waxa aad loo soo hadal qaaday in kiisaska ay soo farageliyaan sheekh saciid odayaal dhaqameedku marka kiisaska kufsiga odayaal dhaqameedku horta ma soo farageliyaan doorse iyagu ma ku yeelan karaan in la xaliyo kiis mahadsanid intaan su-aashaa ka jawaabin waxaan rabaa wax yar oo hadalkii shams inaan ku daro dumarka horta xishood iyo cabsi baqdin iyo waxyaabo badan bay la soomaysii waayaan laakiin hal inaan ogaano waa muhiim ma aha in la qaadanayo gabar walba inay tiraahdo waa lay kufsaday in la iska qaadanayo waxaa la yidhahdaa qaacido waxaa jirtaa almutahimu beriyu eedaysanuhu waa beri ilaa ay maxkamad horteed dambi kaga caddaado hadday tiraahdo gabadha tani waa beri baan ah waa lay kufsaday waa in calaamad la helo gabadhii dhibaato soo gaartay muxuu ahaa qaylo ay qaylisay inay dad u dhawaaqatay hadday iyadu raalli ku ahayd oo hadhow markay raalli waxeeda ku ahayd hadhow goortaanta waa lay kufsaday waxaa weeye iyada iyo kan sameeyey isku dambi bay noqonayaan haddayan la helin calaamad la helin waa in calaamad la helo oo ay caddaato gabadha tan gabar kusi lagu sameeyey waayo waynu ognahay gabdhaha la kufsado maryahooda way dilaacaan iyaga dhaawac baa soo gaara rafaad badan baa dhaca meeshii baa waxaa lagu arkaa ay
dhibtu ka dhacday waa in laga dareemo inay tahay qof dagaalantay taa laga dareemo oo caddaan la helo tan odayaasha runtii waxa weeye hawl badan bay qabtaan oo ma aha inaan leenahay odayaashu ma qabtaan hawlaha dalka ka dhaca boqolkii 80 odayaashu way qabtaan oo way xallinaan way ku mahadsan yihiin laakiin waxa weeye arrimaha kufsiga oo kale oo u baahan sharci waxa wanaagsan odayaashu inay u daayaan hay-adaha loogu talagalay oo baarista oo sidaa CID-da xeer ilaalinta iyo maxkamadda oo leh ciqaabtooda si ay u yaraato faldambiyeedka aadka u farabatay si ay u yaraato oo qofku ciqaabta uu dhadhamiyo haddana waxaan ognahay markii dad caadaystayaal ahaa oo badan la xiray oo xarig dheer lagu xiray dhulka miyiga ah runtii waa ka soo yaraatay laakiin iminka waxay magaalooyinka waa bedelayo kufsi wadareed la yiraahdo oo aad u foorxun oo dhalinyaradii ay samaynayso ayaa magaalooyinka jiro oo inta gabar la qabsado meel la tago gabdhaha ummadda kale gabdhuhu waxaan leeyahay way ka qayb qaataan taa nafteeda maxaa yeelay gabadha hadday caawada iska maqnaato oo aroosyo ka soo qoobka ciyaarto oo iyadaa dambigii wax ka yeelanaysa waa in waalidku ilmihiisa wiil iyo gabar mid kastaba ha ahaadee waa inuu la socdo oo la ilaaliyo oo qofka tarbiyadiisii iyo akhlaaqdiisii iyo diintiisiiba la ilaaliyo si ay dhibaatadaas ugu dhicin oo wiilkeena dib u samayn gabadheena dhibaata usoo gaarin marka odayaashana waxaan leenahay hawshaa way galaan oo wax badan bay intay xoogaa iyo u kala qaataan xataa gabadhii dhibta loo geystay marar badan aysan waxba gaarin waxaan leenahay faraha uga qaadeen hay-adaha garsoorka waayo waxaa jiray xeer mar hore ah oo aan u malaynayo 2000 iyo kale xoogaa inuu ahaa oo odayaashu ay saxiixeen oo BDRC lagu qabtay ma jaamacadda waxay ahayd BSU lagu qabtay oo ay saxiixeen oo yiraahdeen arrimaha kufsiga oo kale iyo waxaan u daynay hay-adaha sharciga marka waxaan leeyahay xeerkaasi ha dhaqan galo hay-adaha sharcigana ha loo daayo sidaasna hadda iminka maanta guusha Puntland ka jirta oo laabka si gabadh mar walba xuquuqdeedu u hesho dambiilahana loo ogaado dambiilaha haddii aan xadkii lagu qaadin xarigaasu helaya haddii laabatan caddeeyo inuu yahay marka saab waxaan leeyahay guul bay u tahay Soomaaliya oo dhan bay u tahay Puntland keliya ma Soomaaliya bay u tahay marka waa in arrintaasna sida aynu u wada ogaano odayaashuna saa aan maanaha u leeyahay soo jeedinaya tan soo jeedinaya laakiin hawo badan bay qabtaan odayaashu waa taad umaasantay barnaamijkii dhammaadkiisaan soo gaarnay waa la isla soo qaatay oo in ay Puntland kufsi uu ka dhaco laakiin hadda horumar laga sameeyay marka sidee baa looga hortagi karaa in uusan dhicin kufsi dumarkana aan tacaddi loo geysan salaam adigan kugu soo gogoynaya waa baasantay walaal waa su'aal wanaagsan tacadiyadu waa waxyaalo fara badan weeyaan waxaad moodaa waa magac wadareed waxyaalo badan buu kala baxayaa kufsiga kamida waxaa kamida muxuu ahaa yani afxumada dhaqan xumida takooridda addoonsiga afduubista waxyaalo badan marka waxaa la odhan karaa waa tacadiyo hadda jeerna waxay ku dhacaanba dadka nugulka ah ama macnaha birmageydada ah sida haweenkoo kale gaar ahaan gabdhahoo kale waxaan odhan karnaa meelaha hoyga u ah waxaa kamid ah meelaha qaxootiyadu degan yihiin meelaha barakacyaashu degan yihiin meelaha masiibooyinka iyo dagaalada iyo waxaanu ay ka socdaan baynu odhan karnaa baa hoyga u ah marka aan usoo noqdo seeba lagu hortegi karaa anigu waxaan odhan lahaa wacyi badan gelin fara badan ha la sameeyo oo bulshada wacyi gelin ha loo sameeyo oo meelaha aynu had iyo jeer aynu isha ku hayno ee ay ka soo baxaan faldambiyada noocaasi wacyi gelin badan ha loo sameeyo ha lagala hadlo dunuubta iyo waxay mudan tahay iyo muxuu ahaa waxay mudanayaan xagga shariica islaamka in wax looga sheego dadka oo lagu wacyigeliyo oo masaajidyada iyo magarta media looga sheego baa wanaagsan taa marka laga yimaado ani waxaan lahaa lagu labeeyo oo boolisku talabadu qaadi awal baqaad jiray hasi kordhiyo si macnaha haween loo bartilmaameedaysto eedaysanaha uu ku soo simo boolisku ilaa iyo xeer ilaalinta ilaa iyo maxkamadda ku soo simo maxkamadda xeer ilaalintuna ilaa eedayn ilaa xukunka qaado ciqaabtu mudan yahay in la marsiiyo si ay ugu daydaan eedaysanayaasha dambe ama kuwa u soo
muxuu ahaa isha ku haya hebel ama kufsi wadareed wax ka sameeyey ama kufsi caadi sameeyey si ay uga fogaadaan ciqaabta ku dhacday eedaysanaha labadaasaa ugu dayeysa baan aniga odhan lahaa si xeerkaasu uu u dhaqan galo in tallaabooyinkaa la qaadaa waatay aad baad mahadsan tahay dhammaantiina aad baan idinkaga mahad celinayaa si aad uga soo qayb gasheen barnaamijkan dooda ah halkan aan ku falanqaynay kagana hadalnay dhibaatooyinka ay haweenku la kulmaan sida looga hortegi karo iyo caqabadaha ka hor yimaada in xeerka dowladda puntland ay u diyaarisay uu hirgalo daawadayaal guud ahaan barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa doodaha waxaa barnaamijka kala qayb galay sidaas oo daawateenba sheekh Saciid Axmed Faarax oo ka mid ah culimada Puntland isla markaasina ka mid ah sidoo kale qareennada waxaa kaloo barnaamijka kala qayb galay Cabdiqani oo isna ka socday xafiiska xeeraarinta guud ee dowladda Puntland iyo Shamso iyadana sidoo kale xafiiska xeeraarinta guud ee dowladda Puntland ka socotay sidoo kale Salebaan oo isna ka mid ah ciidanka booliiska gaar ahaan qaybta CID-da ayaa isaguna barnaamijka kala qayb galay waxaana ku falanqeynay sidaad soo daawateenba barnaamijkan kufsiga iyo tacadiyada gaarka ah ee haweenku inta badan ay la kulmaan waxaa iska kaashanaya barnaamijkan telefishinka iyo raadiyaha dowladda Puntland xafiiska xeeraarinta guud ee dowladda Puntland iyo hay-adda UN Women oo iyaduna barnaamijkan qayb ka ah aniga Cabdi Saaq barnaamijkan la socodsiinaya tan iyo kiis xiga kan intaan ku kulmi doono nabadgelyo